cabdiraxmaan maxamed maxamuud door oo ahaa murashax hore ugu dhawaaqay inuu taagan yahay doorashada golaha wakiilada Soomaaliland ee soo socota ayaa waxa uu shaaciyay inuu ka tanaasulay musharaxnimadaasi kadib markii sida uu sheegay deegaamadii uu doonayay inuu ka soo baxamo codka uu ka helo aan laga qabinin diiwaangelintii codbixiyaasha ee ka socotay gobolka Sanaag. cabdiraxmaan maxamed maxamuud door oo ka soo jeeda bariga Sanaag ayaa waxa uu sheegay in deegaamadaasi aan laga qabinin diiwaangelinta waxaana uu sheegay in arrintaasi aanay u suurtagelinaynin inuu musharaxnimadiisa sii wato. cabdiraxmaan maxamed maxamuud door oo isagoo ku sugan magaalada Xingalool ee bariga gobolka Sanaag khadka telefoonka kula xiriiray ayaa waxa uu iga faahfaahiyay sababaha ku kalifay inuu ka tanaasulo musharaxnimadiisa waxaana arrintaasi mas'uuliyadeeda dusha ka saaray xukuumadda Soomaaliland. cabdiraxmaan door oo arrintaasi ka hadlaya waxa uu yiri markii hore laakiin hadda musharax leeyahay waana ka tanaasulay sharaxaadii because dee cod baan ku soo bixi lahaa codkan ku soo bixi lahaana deegaan buu ka iman lahaa la diiwaan gelin lahaana dad bay ahaayeen marka dee haddaan deegaankii aan sanaaduuq la geynin oo dadkiiba isdiiwaan gelaya ay dooranaya waayo deegaanku ma aha laba tuulo ama 4 magaalo maaha deegaanku wuu ballaarnaa 3 degmo iyo bad uu deegaanka Sanaag bari marka degmo la qoray waa la kansaray degmo dhaxarna waxba kama dhicin oo waqti Sanaag uu dib loo soo celiyay degmada barana meelo yar yar oo kooban baa dad kooban oo waliba yar iska diiwaan geliyeen marka deegaanka aan rabay inaan ka soo baxo waxa uu ka koobnaa degmo la qoray ku jirtay iyo degmada dhaxar iyo degmada baranba inta ay xukumayeen in fara badan oo ugu badan baan ka soo baxay intii bana sanaaduuq wala ma keenin marka maxawan ka soo baxaa meel cidlaabaan ka soo baxaa qofku waa inuu si diiwaan geliyaan dadkii si diiwaan gelin haddana sanaaduuq loo keenina meel iska diiwaan geliyaan ma haysanin sababna xukuumadda u haydo waa tii ciidamo meesha geysay ciidamada geeyeen dadka weligood ma maaragaysa safiiskay ka qabeen imka ciidamada dib loo soo celiyay ciidamada la rabo inay dalkoodii deegaankoodii joogaan inay joogaan baahida ma ahayn sanaaduuqda lagu sii daro hadana lagu soo daro haddii hadda doorasho imaadana tii un baa imanaysa marka ciidan la arko dadka waa boodaya laakiin dadka inaan waxa weeye maamul la gaarsiiyo ciidanka la baro haddii la degayo meesha degaan joogaan aanay ka soo noqonin laakiin marka la yidhaha hawl baa socota haddii meel la geeyo adiguba qof kastaba magaaladiisa haddii ciidan meelka laga keeno hargeysadana ku dhaho way ka boodaan habeenkii hargeysa hadii lagu arko ciidan fara badan oo hore loo arki jirin waxaa dareemaysaa dadka inay doonayaan hore wax ciidamada maxay ahaayeen iyo maxaa soo galay iyo maxaa dhacay waa la isweydiiyaan halkan oo aan aragba 25 sanadood lafteedu way ka bidayaan way safayaan qoskareystaan ka tanaasulo musharaxnimadii saasaan uga tanaasulay marka imika qorshahaagu muxuu yahay qorshahaagu hadda wuxuu yahay in hadda deegaanka joogo dadban joogaya kullay hawlo siyaasadeed iyo hawlo ciidanba oo hadda deegaanka ka socdo baan la jaan qaadaya bal markaa in deesaskan la kala qabo dadku kala qabaan bal in la soo dhawaan karayo dad la kala turki karayaba bal deegaanka muddo dhex joogo dadka dhex maro rabitaankooda weydiiyo wax ay rabaan ogaano laakiin aanan noqonin dad marba inta yimaadaan dadka inta wax shaqada hadana dib uga noqda laakiin waxaan rabnaa rabitaanka shacabka ogaano waxa ay dadku rabaan aan raacno markaa khadaro shirkaasi waa shir jira weeye waxaanu ka dhacayaa magaalo la yiraahdo Hawar Shiro oo 80 kiiloomitir bari kaga beegan magaalada Baran waana shir dadka deegaanka adiga ay qabsanayaan oo gaar ahaan deel la yiraahdo beesha reer Saalax iyo bahwadaagtooda waa shiray leeyihiin waxaana shirka qaban qaabadiisa iyo hawsha gacanta ku haya garaadka guud ee beeshaas Garaad Cabdullaahi Cali